xalay waxay ahayd habeen loo wada fadhiistay hibada kubadeed ee mucjisada wadata ee xidiga reer Argentina ee Lionel Messi waliba xidigaha Tottenham oo joogay garoonkeedii Wembley ayuu baray sida loo ciyaaro Broniga bilowga goolka koobaad ee kooxda Barcelona waxaba min bilowga ciyaarta lahaa Philippe Coutinho. Here's an opportunity straight away for Barcelona that's thundered in by Philippe Coutinho. The finish was brilliant from the Brazilian. The initial through ball from Messi quite sublime. Tottenham 0, Barcelona 1, and the worst possible start for Spurs at Wembley. daqiiqadii 28 Bononi uu si qurux badan ugu soo shaqeeyay Philippe Coutinho iyadoo jookara ku socota waxa helay Rakitic oo ku falaashay goolkii wardiyaha uu ka ahaa goolhaye Hugo Lloris. Rakitic onto it. Oh, what a hit! What a goal by Ivan Rakitic! An outrageous volley by Rakitic. It's Spurs 0, Barcelona 2, and that's a special goal. qaybtii hore ciyaarta waxa lagu kala tagay iyadoo 2 gool iyo waxba ay ku horkacayso kooxda Barcelona. markii la isku soo laabtay qaybtii labaadna Lionel Messi waxa soo martay 2 fursadood oo darandoori ah laakiin waxa ka beenisay Pirta qaladkii uu galay Messina waxa saxay Harry Kane oo gool qurux badan ka gadaal mariyay goolhaye Andre ter Stegen. Messi oo dib boorka isaga jafayana kuma qaadaninba 4 daqiiqo inuu dhaliyo goolkiisii ugu horeeyay ee ciyaarta. Spotted the run from left back of Jordi Alba. Here's Coutinho, leaves it for Suarez and Messi, and this time he squeezes the ball in. And in the blink of an eye, the 2-goal lead restored for Barcelona and restored by the little magician Lionel Messi. It's Tottenham 1, Barcelona 3. laakiin Eric Lamela ayaa si qurux badan kaga faa'iideystay Bruno uu shaqadiisa lahaa Hon Min Son isagoo darbarida dheer ah ka toogtay meel ka baxsan diilinta 18 goolka. And with 25 minutes to go, it's Tottenham 2, Barcelona 3. dabayaaqadkii ciyaartana daqiiqadii 9aad waxaa natiijada ciyaarta 4 gool iyo 2 ka dhigay Lionel Andres Leo Messi. Messi can finish it at Wembley and does. Lionel Messi, second goal tonight, and he is so clinical for Barcelona. And in the last minute of the 90, Messi gets his second goal, and it's Tottenham 2, Barcelona 4. 4 gool iyo 2 waxay guusha ku raacday kooxda caanka ah ee Barcelona.